موضوع aad u xasaasiya waxaan rabaa inaan kula wadaago waxaadan jeclayn inaad hore u maqasho sababta aad bilaa lacag u tahay bil walba ma ahan cadadka lacageeda kusoo gala iyo mushaharka aad qaadato haddii aad u malaynayso cadadka lacageeda inay mushkiladu tahay imise qof ayaa taqaanaa lacag fiican ay soo gasho balse mushkiladaada oo kale ay haysato bisha badankeedana bilaa lacaga haddaba waxaa jirta lacagtu waxay leedahay cabashooyin fara badan maantana waxay kula wadaagi doontaa cabashooyinkaasi mid ka mid ah kusoo dhow baan kule barnaamijkeena maanta magacayga waa iid shantii sano u dambeysay waxaan wadnaha dul saaray maareynta maaliyadda waxaana dhisay softwareka la dhahdo xisaabi real estate business iyo business consulting mawduucana maanta anaa inoo daadihi doona ee daabasho wacan cabashada koobaad anigu ma dhammaada ee adiga ayaa i dhammeeya waxaan rabaa inaad ila sawirato bil walba 30 cisho ayaad shaqayni waad dadaali waad rafaadi aroor walbaad kici waxaad u howlanaani si aad ugu dambaysta u mushaar kuu soo galo waxaa ka dhiman 5 cisho waqtiga mushaarka uu kusoo geli lahaa waad qorsheynaysaa waxaad ka fikiraysaa waxaad ku qaban lahayd dhiirinaan baad iska dareemaysaa ugu dambaystii mushaharkii ayaa kusoo galay taleefankaaga saa u fiirini lacagtii waxay kusoo dhacday taleefankaaga culays fara badan oo dhabarkaaga saarna ayaa kaa digi doona waxaad markaaba go'aansanaysaa isla markaas lacagta meesha ay kooga soo gashay inaad tirahdid bal horta lacagta ambacda ka jar haddii cafeteria aad fadhidid koob shaaxaad qac kaga siinaysaa haddii aad suuqa joogtid meherad baad tegaysaa dhar baad soo iibsanaysaa haddii aad online-ka aad dul fadhididna waxbaad dalbanaysaa aad rabtay inaad dalbato tan waxaa caddayn waa kan mushaharka badan qaata iyo kan mushaharka yar leh inayna wada haysato hal mushkilad oo aad u weyn oo ah cabashada ay naga qabto lacagtu waxay leedahay laba marxaladood oo ay marto marxaladda koobaad sida ay lacagtu kuu soo gasho marxaladda labaad sida ay lacagtu kaaga baxdo dadka badankoodu waxay dhintaan iyagoo weli kaada daba socda oo weli kaada ka fikiray qaabkii lacag fara badan ay u samayn lahaayeen iyagoo iloobay marxaladda labaad ee ah lacagtii soo gashay sidee bay igaga baxday lacagtii soo gashay halkee bay ku baxday maxaan ku bixiyay iyo wixii lamida bal ilaa arag labadan qof sida kala duwan ee u dhaqmayaan labadaba waxaa soo gashay $5,000 qofka koobaad lacagtii ayay soo gashay wuu bixbixiyey bishii 15keedii waa bilaa lacag dayn uu raadsanaya qofka labaad lacagtii 5,000 way soo gashay qorshe hore uu lahaa ayuu ku dhaqmay lacagtii wuu bixbixiyey uu kala maareeyay ugu dambeystii lacagkeeda ayuu dhigtay bishii marka ay dhamaato mushaharka xataa hadduu soo geli waayo wax warwara oo ku qabo male labadooduba waxay qaataan lacag isku mid ah balse mid lacagtii way ka dhammaatay midna lacagtii weli kaada uu haystaa oo kaydba u yaala sababtan darteed lacagtu ma dhammaato ee adiga ayaa dhammaya haddii lacagtu ay hadli lahaydna waxay ku leedahay anigu ma ihi dhibaatada ee adiga ayaa dhibaatada waxaan kuu imaadaa adigoo bilaa qorshe ah cabashada labaad markaan kuu imaado waad ii ilowdaa bal arag bil walba waxaad ka fikirtaa in aad tiraahdid bishii hore sidii aan u dhaqmay lacagteedu halkii hore ay ku baxday bishii hore waxbaan iska bedeli doonaa qorshaan samaysan doonaa waan is hagaajin doonaa waxbaan dhigan doonaa balse marka ay ku soo gasho adigiiba matid cabdigiiba matid waxaad leedahay lacagtii way soo gashay hadda bacdaan ka jiro isla goobta aad joogto ayaad bacda kaga jirtaa haddii aad joogto cafeteria koob shaaxaad qac kaga siinaysa asxaabtooda wada casuumaysa waa la cashaynaya habeenkii xataa hore u hoyan maysid maalinta ku xigta haddii aad joogtid suuqa dhar baad ka iibsanaysaa haddii taleefankaagu kooriyan online shopping baad samaynaysaa lacagtu waa qasab isla markay kusoo gasho isla goobta aad joogto waa in bacda lagaga jara lacagtu markay kusoo gashay warwarkii iyo daalkii iyo fikirkii faraha badnaa hoos ay kaaga wada dhaceen waayo dadku marka ay bilaa lacag yihiin qaladaad fara badan ma sameeyaan balse qaladku wuxuu bilaabmaa maalinta ugu horreysa ee dadku ay lacag helaan waxaanad ilowdaa in lacagtu ay leedahay xuduud waxaad u malaysaa in berri mushaar kale aad heli doonto waxaad u malaysaa in cid kale ay meel wax kaa siinayso amase inaad ku turanturoon doonto lacag bannaankana aad ka heli doonto iyo wixii lamida balse waxaad ilowday lacagtan inaad u shaqaysanayso 30 cisho balse aad ku burburisay 5 cisho gudaheed bal ilaa arag qaabkaad u dhaqanto isla marka lacagtaas ay ku soo gasho $80 oo cashadii habeenkaasa $40 oo iska baxday oo aan qorshaysnayn $50 oo online wax laga dalbaday $40 oo hadiyada gaadiidkii oo $20 iyo wixii lamid ah xataa haddii aad leedahay kharashaadkaygu intaas ma dhan oo waa $5 oo waa $2 oo waa $3 isku gey $5 ee aad bannaanka ku baxayso si joogtaa $2 ee aad gaadiid ku raacso si maalinla $1 ee aad ku shubanayso taleefanka waxyaalahan marka la isu geeyo wax weyn ayay noqdaan maadaama aysan ahayn mushkiladu waxa yar ee aad bixinayso awa kharashaadkan la isku geeyeen ee yar dad badan halkan mushkilad ay mar walba ay la kulmaan lacagtu ka hor inta aysan soo gelin bay soo qorsheeyaan qaabkii ay u bixin lahaayeen markay lacagtaas ku soo gashana autopilot baabad gashaaba maadaama qorshe hore oo bixbixisa aad ku sii qorshaysatay lacagtaas markay ku soo gashan maadaama ay maskaxdaada ku sii qufulnayd bixi lacagtu marka ay ku soo gasho adigiiba matiide waad bixbixinaysaa maadaama qorshe hore u sii samaysay tanina waa awood khaas oo aad leedahay waayo lacagtu marka ay ku soo gasho waxaad dareentaa in awood ahaan aad leedahay inaad wax walba adeebsan karto lacagtii baa ku soo geli awooddaadu meel sare taagantay adoo daciif ah
isla markii lacagtaas kusoo gashana waxaad wax u iibsataa sidii nin aysan lacagta soo gashay aysan dhammaanayninba waxayna ku leedahay lacagtu ha isticmaalin adigoo dareen igu maamulaya ee imaamul adigoo si qorshe leh ii maamulaya dhammaan ganacsatada guulaysata ee iibkeeda ilaalisa ee deynteeda iska bixisa ee alaabooyinka si saxa u soo iibsata dhammaantood waxay wada leeyihiin iyaguna hal caado dhammaantood dareenka waxay ka horreysiiyaan qorshaha waxay og yihiin in dareenku uusan ahayn wax ganacsigooda ka caawin karaya haddii ay bixbixiyaan lacagta haddii lacagta kula hadli lahaydna waxay ku leedahay waxaad u dhaqantaa isla maalintan kusoo galo sidii in maalin walba aan kuu imanayo adigoo og in lacagta aad heli kartaa ay tahay bisha bilowgeeda adigoo 3 cisho aad ku qasbantahay inaad shaqayso السلام عليكم maanta meherada maxaa la shaqeeyay Allah buugayga xisaabta xageen u doontaa xogtii sanadka hore dhan qorayay halkan ayaan ka maamulaa meheradayda iyo xisaabi fudeediyaha hantidaada mid ganacsi iyo mid shakhsi ahaaneedba shaacinta iyo xisaabi waxaa ka dhiman waqti yar oo kooban haddii aad rabto inaad ka mid ahaato dadka tirada yar leh ee marka ugu horreysa aan fasaxno iyo xisaabi inay isticmaalaan linkiga hoosta yaalla whatsappkaasi nagala soo xiriir si booskaaga aad u xaqiijisatid cabashada saddexaad shaqadaydu ma cadda waxay ku leedahay markaan kugu imaado ma garanayo shaqada layga rabo bal waxaad sawirataa inaad tahay mulkiile oo aad shaqaalaysiinayso shaqaale kala duwan shaqaalayaasha kala duwan hubaal mid walba waxaad siin lahayd shaqo gooni waxaad leedahay adigu waxaad tahay shaqaalaha macmiisha waxaad tahay shaqaalaha iibka waxaad tahay shaqaalaha alaabooyinka ilaaliya waxaad tahay shaqaalaha nadaafadda waxaad tahay shaqaalaha maamulka waxaad tahay shaqaalaha xisaab xidhka iyo wixii lamid ah shaqaalo walba waxaad siisaa shaqo gooniya waayo haddii shaqaalo walba aad odhan lahayd qof walba wuxuu jeclaad ha qabto ganacsiga dhan wuxuu ahaan lahaa jaawareer ugu dambaystana waxaa la isku halin lahaa qof walba shaqada kale inuu qabto ganacsigan ugu dambaysta uu burburi lahaa haddaba lacagtaadu marka ay kusoo gasho shaqo ma u kala siisaa mid waliba meesha ay ku bixi lahayd iyo shaqada ay qabanaysa waxa laga filanayo waa maya waxay ku leedahay markaan kuu imaado ma garanayo meeshaan aadi doono bal qiyaas waxaa kusoo gashay $2,000 lacagtaas waxay kusoo dhici doontaa hal akoon hal jeeba iyadoo laga wada rabo in ay lacagtaasi ku kala baxbaxdo kiradii caafimaadkii deymihii caymisyadii maxaa taleefankii biilashii xaafadaha raashinkii iyo wixii lamid ah dhammaantood hal meel ay kusoo wada dhacayaan balse dhammaantood waxaa la rabaa in loo kala bixbixiyo waxyaalahaas dhan balse xaqiiqdii wax shaqaa ama aadan siinin mid waliba meeshay ku baxayso ee adiga oo filanaya in mid waliba ay iyadu is amarto oo mid waliba ay tagto meeshii loogu talagalay lacagtani ma garanayso midda mudnaanta leh midda u baahan si degdega loo bixiyo midda dib loo dhigan karayo midna ma garanayso maadaama maskaxdaada ma akhrisan karta lacagtu sidee baad ugu dambaysta aad u filan kartaa inaad wax bixbixiso sidoo kalena aad wax kaydsato adigoon siinin mid walba shaqada ay qabanayso waayo kiradu culays badan bay leedahay wayna qaylo badan tahay caafimaadka iyo raashinku waa lagugu soo qaylay dukaankii baa lacagta raba biilkii xaafadda loo diraya waa lagu soo wacay haddii afrika lagu joogo deymihii baa la rabaa in la bixiyo haddii ganacsi aad leedahay cashuurtii baa la rabaa in qasab loo bixiyo balse kaydka iyo waxyaalaha kediska ee soo bixi doona u dhigashadiisa waxyaalahaas oo dhan dhawaaq male wax qasbayana kuma jiro ugu dambaystana waxa hore oo dhan baad bixin waxaana iloobi doontaa waxyaalahan dhawaaqa yar leh lacagtu waxay ku leedahay qayb walba aniga iga mid ah waa inay leedahay magac gooniya haddii kale lacag waliba waxay ku bixi doontaa magac iyadu ay wadato taasoo kugu qasbasa in ay lacagtaasi iska baxdo waana sababta aad u tiraahdo lacagtii way soo gashay dadkan oo dhan miyay ogaayeen lacagtu markay soo gasho bereed waxaana soo baxay waxaana la yidhi qaadhaan baa laga rabaa iyo wixii lamid ah maadaama aadan adigu lacagta ku soo geli doonta aadan magac u sii bixin marka waxay ku leedahay lacag walba oo aniga iga mid ah oo ku soo geli doonta magac u bixi si magacaas uu ahaado magaca aniga la yaqaano cabashadan waxay ku leedahay igu xali in lacag walba oo aniga iga mid ah shaqaalaysiiso magacana aad igu darto cabashada afraad i wada bixisay aniga maxaad siisay qof waliba qayb ayuu igu leeyahay balse mustaqbalkaagu qayb adiga ma kugu leeyahay xaqiiqdii ma tihid qof bila mas'uuliyada qof ma tihid bila qorshe qof waxa tahay dadaalaya qorshe leh wax kala dhigaya wax kala nidaaminaya dadka caawinaya biilasha bixinaya balse ugu dambaystii adigu naftaadii unbaad ilowday meesha ka saartay inta kale si fiican baad wax u wadaa balse waxa ku leedahay aniga unbaad ilowday mustaqbalkaygii waxba umaad dhigan bal aan ku weydiiyey markii lacagtu ku soo gasho yaa ugu horreey oo aad bixisaa ma kirada ma caafimaadka ma biilka xaafadda ma cuntada ma deynta maxaa ugu horreey oo ugu qaylo badan oo aad marka ugu horreysa aad bixisaa lacagtu waxay ku leedahay waxbaad iga siisay kiradii caafimaadkii baad wax iga siisay dadkii baad wax iga siisay deymihii baad wax iga siisay
balse ugu dambaystii waxaad filanaysa in waxa ii soo hadheen oon adigana wax kuu dhigi karo balse wax ma soo hadhin tanna mar fara badan bay kugu dhacday adigoo qorsheyn inaad wax kaydsato bishan baad arki ugu dambaysta in wax lacagiiba aysan kuu soo hadhin maadaama aad naftaadii ilowday haddaba cabashooyinkii waynu soo gebagabeynay aynu u gudubno talooyinka ay ku siinayso talada koobaad ha i bilaabin adigoon iga fikirin ha bilaabin inaad lacag bixbixiso adiga oo aan qorsho hore sii dhigan labo adiga oon go'aan qaadashada ku degdegin oo si degan go'aanka u qaata saddex adiga oonan siinin waqti aad ku fikiri karto tusaale ahaan 24 saacadood si go'aan qaadashadaadu ay u noqoto mid tayo leh u ogolow lacagtu markay ku soo gasho inuu xoogaa caqli ay yeelato ay kula yara degto marka ay ku tiraado hooyacaana isii waxaad tiraada horta reerku ha dego adiguna deji lacagta ka bacdi bilow qorshahaaga inaad hirgeliso talaabada saddexaad ha igu qasban inaan dhammaado ka hor aanan ku qasban inaan dhammaado lacagta inta aad bixbixiso hay odhanin lacagtii way dhammaatay ee waxaad samaysaa lacag waliba qorshaheedii hirgeli oo ku bixi sidii aad ugu talagashay mar walbana fiiri qorshahaaga weli kaadaama ku socotay inta aad baraarugi lahayd lacagtu marka ay dhammaato marka waxay ku leedahay lacag walbaad bixinayso la soco in qorshahaagii aad hirgelinaysay in kale si aadan ugu dambaysta u baraarugin marka lacagtu inta aysan dhammaanin ka hor adigu mar walba isha fiiri in qorshahaagii aad hirgelinaysay in kale tallaabada afraad uguna dambaysa marka hore naftaada isii ka hor inta aadan bixbixin waxyaalaha aad ku qasban tahay waxyaalaha aad u malaynayso inay muhiim yihiin adigu muhiimadda isa sii mustaqbalkaaga muhiimadda isa sii mustaqbalkaaga iyo deganaashahaaga dambe wax si aad u noqoto qof ballaaran ka hor intaadan lacag bixin bal adigu mustaqbalkaaga wax u dhig si aad u noqoto qof ballaaran oo dadku ay wada harsan karayaan qof wax siin kara dadka kale bixin kara bixintaaduna sii badato mawduucan wuxuu ahaa mid ku tusaya qaladaadka aad samaynayso si aad uga digtoonaato bishan hadeer aad ku jirto aad uga cimro qaadato tiraahdo bisha soo socota waa in wax iska bedelaa aan qaladaadkaasna aan ka digtoonaada haddii aan iloobay hal cabasho oo adiguna ku dari lahayd maxay noqon lahayd cabashada aad odhan lahayd lacagta cabashada noocan ay aniga iga sheegi lahayd waxay noqon kartaa inaad leedahay aniga cabashada iga sheegi lahayd xawil in lacagtaasi ugu dhamaato hal cisho ama lacagta inaan bixbixiyo ama waxay noqon kartaa lacagtaba in aanan dan iyo muraad ka lahayn maxay tahay cabashada aan iloobay ee aad ku dari doontay adiga shakhsiyadan aad ku dari lahayd biidnillah haddaad xiisinaysid qaabkaad lacagtaada u kala maareeyin kartidna videogan aad ayuu ku anfici doonaa ee daawasho wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu